السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبيال نيت سمي iyo kalgacayl mar kale ku soo dhawaada. waa saaxiibkiin oo idin leh mar kale iyo kulanti wacan iyo barnaamij kale oo xiiso leh. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar si aad u hesho macluumaad. shan dabeecadood oo haddii aad leedahay aad khatar ugu jirto xanuunada wadnaha. wadnaha waa muruq dhiigga ku faafiyo jirka oo dhan. wax kasta oo Ilaahay abuuray oo dhiig iyo xidid leh wadno ayay leeyihiin, sida shimbiraha, xayawaanaadka, dadka, bulaca ama raha. wadnaha wuxuu ku yaalaa feeraha dhinaca bidixda, wuxuuna garaacaa 60 ilaa 100 jeer halkii minid. intaasay waa sharxaad ee aan u soo noqono mowduuceeni ahaa 5 dabeecadood oo haddii aad leedahay aad khatar ugu jirto xanuunada wadnaha. mayaad ogtahay haddii maalintii aad seexato in ka badan 9 saacadood inaad khatar ugu jirto cudurrada wadnaha ku dhaca? haddii ay tahay sokorta, baruurta iyo cusbada haddii aad basato ayaa siyaadinaya khatarta ay kugu dhici karaan xanuunada wadnaha ee halista ah. haddii miisaankaagu uu badan yahay aadna buuran tahay, siiba uur ku jirtaado haddii ay baruur leedahay, waxaad khatar weyn ugu jirtaa in ay kugu dhacaan xanuunada wadnaha ee halista ah. haddii aad tahay qof stress badan ama walwal badan, murugo badan, aadna u fikira, waxa uu dhaawac badan soo gaarayaa caafimaadkaaga guud ahaan, siiba wadnahaaga. haddii aad jimicsi samayn oo aad tahay qof inta badan iska fadhiya ama socon, waxaa khatar ku jira guud ahaan caafimaadkaaga, siiba wadnaha. mar walba oo jimicsigaagu yaraado waxaa siyaada miisaankaaga. haddii miisaankaagu siyaadana waxaa wajahaysaa dhibaatooyin caafimaad. wadnahaagu khatar ayuu ku jiraa haddii isticmaasho sigaarka iyo tubaakada iyo dhammaan walxaha laga sameeyay sigaarka. 30% dadka ay ku dhacaan xanuunada wadnaha isaga ayaa sababa sigaarka. haddii aad dhafarto oo aadan habeenkii in badan seexan, waxaad wajahaysaa xaalad khatar oo ay kugu dhici karaan mustaqbalka xanuunada wadnaha. dhammaan dhibaatooyinka aan kasoo sheekeeyey ma ahan kuwa aad hadda si degdeg ah u wajihi karto ama aad calaamadahooda ku arki karto, ee waxa aad wajihi kartaa marka aad weynaato. waxaa sidoo kale macquul ah yaraanta inaad ku aragto calaamadaha xanuunada wadnaha. haddii aad dabeecadahan leedahay oo aad wax ka beddesho, waxaad hagaajinaysaa ama wanaajinaysaa caafimaadkaaga wadnaha ee fadlan iska jooji. haddii aad wax ka faa'iiday mowduucan, fadlan la wadaag asxaabtaada si ay ugu faa'iidaystaan. mahadsanid.